ما يسيروا بوحدحيان ما نبع حقوق الإنسان بوحلوضحيان ما جبت إن حقوق البني آدم كلها إلى رية درجات وحلوضحيان ما جبت على القلبين يين دولتها الداغضة بحيان ما جبت تيد ويلقى مع عالم كستحادين وياهي قوة الداغضة لسيابة أنا ما كستقاضرين إعلامكم إنتو الشيبه هي أنت قرصور باقضا لكن وحنو ملاينا هدين وحيابا قاكوت كدينا إنو شرحنا ملا إلا حد إنددكو برارو بكرا هدو قفكو برارو غنا والله يابا مكاينو فاديو ماشي حلكو جرا يورو قورمي بحيسا قورمي دولة النقطة الدولة ده هداغضا بحيا محا إيسيد الله سميس يعني في غفلة بينكو جرنا مثلا دولة ده غير قلباكو waxay ku dadaalaan yani malaha iyagu ahlu kitaabnimada inuu ku sheeganayo wixii ka tagay waalkii sheekhay turkiga sheegaya ahlu khilaafkii bay malaha iyagu yihiin layla waxa kan dawladaha reer galbeed waxay u fakaraan qadiyad ka gadisan sida tan sida waxa loo samaystay kuwa kan in la ilaaliyo sicirka dunida iyo wax soo saarkooda sicirka dunida raashinku waxay dunida dadka ugu dhawaaqaan free market waxa la yiraahdo ديمقراطيته waxay ku salaysantahay in free market la sameeyo free market waa maxay waxay leeyaan ardiga iyo talabku inay islaakaadaan ardiga iyo talabku waa maxay waa inay islaakaadaan doonista iyo wax soo saar yani ninka baac mushtarkaay hadii aad suuqa keento wixii uu u baahnaa wax ka badan mesela 2 kiilo baradhada suuqa u baahnaa markaas 100 kiilo iyo baradhada keentay haday isjabinayeen waa inay waxaaga jabaan marka waxa la isku qiyaasaa la yiraahdaa baahi mushtarka gabrigiisaba baahida dunida iyo wax soo saarka waxa yiraahdaa wax soo saarka iyo waxay kala badan yihiin baahida dunidu wax soo saarka reer Yurub ka badan bay yiraahdeen baahida dunida oo dhan oo markaas la yiraahdaa sida waxay sameeyaan raashinka la soo saaraa dabeetana beeralayda lama ogola in la niyad jabiyo waayo beeralaydu haday niyad jab ku dhacdo waxay isbedelayaan wadciga siyaasiga wadanka oo mudaharaadada dhacayo waa naqabaad bay leeyihiin marka xisbiga oo dawladda maamula waa inuu dhaca mashkilad baa qabsanaysa marka lama oran karo beeralayda waxba soo saarina waa in dawladdu ay siisaa kaalmadii ay siin jirtay dadka wax soo saaray laakiin wixii markay soo baxaan hadii suuqii la geeyana wuu isjabinayaa ee la oranaya oo intaajkiiba badan baa la leeyahay waxay dhaqaalayahanadoodu qiimeeyaan suuqa baahida uu qabo dabeetana waxa laaliya waxa dheeraadka waxa lagu isticmaalaa in la gubo dabeetana la aaso sanad walba waxa la sameeyaa intaas oo milyan oo tan oo raashin ayaa la sameeyaa raashinkaasi waa la aasaa waa la gubaa dabeetana nafaayadkiisa dawladdu meel u raadisay waa la aasaa waxa dhacda in mararka qaarkood la yiraahdo laba goor uu markaa reer galbeedku wax bixiya laba jeer oo kaliya labada goor waxay ku saleeyeen koow in la arkaba yiraahdaan dawlad dhaqaalaheedu soo korayo oo laga yaabo inay isku filaanshiyo gaadho daatiya dawladii waxay ibsanayeen mid kamid ah tayada inay wax soo saarto isku filaato soo macnaheedu ma aha in sidii reer galbeedku waxay soo saarayeen qayb kamid ah laga gadanay ila qaybta ay gadan lahayd iyada soo saartay taasi daraadeed waa in la isku dayaa sidii loo joojin lahaa arintaasi waxba la siiyaa wax bixintaana waxa loo dhiibaa dawladaha meesha ka mas'uula hadiye goor dictatoriyada baliyaba madama Soomaaliya oo kale beeralayda wax beerta sisin bay beerta sanadka marka sisin badan uu soo baxdo ay Mareykanku siyaad barro wuxuu soo siiyay markab saliid cadeeya sisintii daba lama iibsanayo sanadka dambe bay xaq xabooda beeralayda way hadii sisintaasi uu ninkan beeray ay suuqa gasho uu ninkan beeralayda lacagtii helo uu ku wadayaa inuu wax soo saaro hadii wixii uu soo saaray magaalada uu lacag kaga helayo ninkan beeralayda waa nafleeyo lacag uu doonayo marka wax soo saarka uu badanaya si aan wax soo saarku u badanin maalinta sisintu badata waa inuu Mareykanku markab saliid cadeeya siiya saliid cadeeyina waa inay dawladdu iibisaan dabeetana waa inay dawladda waxa la leeyahay dhaqaalaha dawladda la kabayo miisaaniyada sanadka soo socday dawladda si loogu kabo waxa uu diin garanay in la siiyo markab saliid cadeeya markabkii saliid cadeeyga markay dawladdu iibisay dhaqaalaheeda ku kabto waxa ka ratibmaya ninkii beeralayda intii la gadan waayo sanadka dambe waxa cabeeraya
idan ummadaasi waa inay gaajo u baqtidaa marka sidii bay Soomaaliya weligeed ugu baahnaaneysay inay saliida dabada ka soo iibsato marka waxbay bixiyaan reer galbeedku mar labaad bay wax bixiyaan waxay wax bixiyaan haddii ummadi ay gaadho xad ay ka baxdo inay wax galato yacni dad baa way isdileen abaar iyo balaaya ku dhacday way madheen xad bay gaadheen markaasi iyagoo aan jeefkooda shilin ku hadhin oo ay ka baxeen suuqii dunida haddii kuwaa wax la siiyo sicirkii dunidu isma bedelayo waayo kuwani lacag kuma hadhin oo iyagu waxba gadan maayaan oo sicirka dunida waxba balanskiisii waxba u geysan maayaan marka kuwa kan haddii wax la siiyo waa iska suurtagal laakiin ma ilaahay dartii baa loo siinayaa maya markay dawladda reer galbeedkii wax bixiso waxbay faa'iidaan sideedaba reer galbeedku waxay idhaahdaan waxna waxna keen waa wax lagaa faa'iidaya meel cidlaa lilaahi ma jirto waa laga yaabaa wadaad kiniisada iska tago isagoo weli rumaysan ciise iyo intiisaasi ama islaam miskiina waxoogaa laga soo ururiyay qoladaas inay isleeyihiin aakhiro ciise idin jannada gelinaya ciise dartii u bixiya waa laga yaabaa in kooxdaasi jirto laakiin asiyaasaat dawliya كل واحد إعلان يا إن أنا عقائد حكومين هنا اختصاص حكومات عالم بين كل دولة مركز بحسم حي بعيدة دولة تقال صقلة مركز بحسم تك عين كاسيو كلا شو ما حي تقال صقلة دولة الراشين كان هنا يقررسو أو تبيت الجبتو أو تبيت الجدك كأسطو لعب بقى بحدا لعب بقى بحدا الراشين كان يقررسيسا لعب بقى بحدا معامش وشده واحد كان ديبو كبير خشك كان قال لعب بقى goobaha lagu aasay dawladda lacag ku joogaano lacag bay qaataan marka ay bixiso marka bariisa ama marka galley iyo marka la geeyo Soomaaliya gaajo waqtigiisa macnaheedu waxa weeyaan dawladda miisaaniyadeedii loogu talagalay inay ku gubto raashinka dheeraadka way haraysaa waayo waxa la helay ku daafad lagu rido raashinka qofkii waqtigeeda marka waa baxay wuxuu la mid yahay godkii wax la iskaga aasay oo aan waliba lacag doorin taasi daraaddeed waxa weeyaan dawladdu dhaqaale labaad bay helaysaa idan عقلية قلبيت كتالواتها وعقلية دقالات كتابتها هذه جرائد وقرآن حقوق البني آدم أما يكون قرآن جرائد وحفاظين يعني وإعلام في وطن كلها هذا نحضر كروي وصعده